السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن كلنتي وناسن كنا سoo dhawaada barnaamijka kula wadaagna sheekooyin kubadda cagta ku wada hadalaya ciwaanada waxa qaadanaya Kylian Mbappe ugu dambeyntii kooxdiisa hore Paris Saint-Germain kaga guuleystay kiiskii maxkamadda yaal ee dabcan Paris Kylian Mbappe waxa ka rabnaa 200 milyan oo euro asna uu dheer 250 milyan oo euro ayaan ka rabaa kadib markii la isku haystay image rad waxa la dhaho xuquuqda ciyaaryahankan ee Paris ka faa'iideysteen balama waxa jira ku aadan commitment sanadii ugu dambeeyay ciyaaraha oo ku lahaa lacag in la siiyo sidoo kale mushaaraad iyo tabana inay ka maqnaayeen maxkamad sida isaga wareegay ugu dambeyntii hadda dhanka Mbappe guuleystay waxaan lagu amray Paris inay siiyaan ninka 60 milyan oo euro sida RMC Sport xaqiijiyay BBC daawacaysa Fabrizio Romano kulli dhamaan shabakadaha kala duwan ee kubadda cagta training-ka ciwaanka wuxuu yahay Mbappe oo kooxdiisii hore maxkamadda kaga guuleystay qodobkaas saxaabada isla eegina saadartay marka weeraryahankan Faransiiska ee Paris Saint-Germain dabcan 7 season ka tirsanay markuu ka soo tagay hadda waxa loo xugmiyay 52 milyan ibar lacagta pound ama 60 milyan oo euro ay u xugmisay maxkamadda Faransiiska isugu jirtay mushaaraad aan la siin iyo gunooyin ciyaaryahankan waxa la xasuustaa inuu maxkamadda la tagay inuu ka rabo kooxdiisa Paris Saint-Germain 263 milyan oo euro ayagana counter attack waxay ku soo qaadayeen waxaan ka rabnaa ciyaaryahankan 240 milyan oo euro maadaama saddexnimo nagu ciyaari waay sidoo kale tan qandaraas ku nin uu diiday ugu dambeyntii kiiska wuxuu ku soo ilaaday 26 jirkaan oo hadda guuleystay sidoo kale tan Paris lagu amray lacagtaas inay bixiyaan waa mid kamid ah kiisas kubadda cagta ee koox ciyaaryahanka isqabsadaan isla aadaan maxkamadkii ugu weynaa taariikhda waxaana ku guuleystay Kylian Mbappe saxaabiyal arrinkan wuxuu noqday arrin haatan aad iyo aad loo hadalhayo waxa la Paris waxa u fiican hal mastuur inay ku dhameeyaan oo Mbappe hooyadiis lacag iska siiyaan hadda waxa la maxkamadna waa la isla aaday dhibaatooyin badan meesha waa ka dhacday ugu dambeyntii waa laga guuleystay waliba xitaa maxkamadda waxa laga war cadeeyay 3 bil Mbappe mushaarkiisa Paris Saint-Germain intii u dhaxaysay April ilaa June 2024 oo ay ku jirto xitaa lacag bonus uu ku lahay saadartay markii 3 bilood ugu dambeysay Mbappe Paris uu ka soo tagay ninka mushaaraadka waa ku boodeen ugu dambeyntii marka hadda lacagtaas ee ninkan loo xugmiyay waxay ka dhigantahay marka maxkamadda shaqeysay waana la kala baxay Paris xitaa hadda koor waxay ku doodeen ninkan waxaan la heshiina kooxda Hilal oo 300 milyan oo euro diyaar la ah diidmada uu diiday xilin qasaaran kala kulanay asaan lacag ka rabnaa wax allaale wixii dabcan isku difaaci karaan Paris waa isku difaaceen laakiin hadda maxkamad markii la isla tagay waa la kala baxay ninkan Paris Saint-Germain saxaabyaal wuxuu ka tirsanaa intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2024 marka kuwaad amaah kaga soo qaateen kooxda Monaco kadib ay iibsadeen ilaa 185 milyan oo euro ay ku iibsadeen muddadii uu la joogana 15 koob caalami ayuu la qaaday kooxda caasimadda Faransiiska dhisan wuxuu kaloo kaga tagay taariikhdaas oo ay kan ugu goolasha badan Paris Saint-Germain maadaama uu shabaq u gaarsiiyay 256 gool 308 kulan oo ciyaar waliba seasonkiisii ugu dambeeyay 44 gool oo shabaq gaarsiiyay asoo u ciyaaray 40 iyo dabcan 8 kulan sida rasmiga ee diiwaan gashan kiiska Mbappe waa soo xirmay ra'yiga ka dib saxaabyaal soo dhawaada xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan janaalkan subscribe inoo saar akhyaarta joogtana u xirna muuqaalka noo la gareeso oo meel u gaaro marka waxaan soo qaadanaynaa Bruno Fernandes ee ugu dambeyntii nafisay Janis uu ku hadlo helay ciyaaryahankan wuxuu dhahay dabcan Manchester United maamulkoodii agaasimayaasha waxay rabeen kooxdan iga xoraan ama iga saaran xagaagii waa ka warqabnaa in carabtii ay soo dalbadeen United 100 milyan oo bond miiska loo soo saaray kooxdii qasaare waxay la kulmeen Europa League in laga qaaday Champions League aysan ciyaareen 100 milyan oo bond ka badan ay qasaareen Bruno wuxuu leeyahay marka arrinka serious oo ahay agaasimayaasha iyo maamulka United waxay go'aamiyeen in la galo wakiilka xitaa waa la khalqay laakiin wuxuu leeyahay anaa diiday waxaan u diiday jacayl aan kooxda u qabo iyo familkeyga oo dabcan Manchester jacayl iyo aan rabin inaan sabcan carabta aado laakiin hadda wuxuu leeyahay waxaan hubaa maalmaha kamid ah inaan Sacuudi Carabi aadi doono ciyaaryahankan dabcan wuxuu laba burqaday ama uu dareenkiisa uu banaanka soo dhigay xilli hadda uu yahay hogaamiyaha kooxda Manchester United awal buu ahay laakiin xogaa way ka jifatay October ilaa hadda Premier League ciyaaryahan ka saameyn badan ma jirto contribution goolash shabaq gaarsiinaa goolash uu caawinayo kulankii ugu dambeeyay daawadan oo wacdaraha uu dhigay Bournemouth 4-4 ku soo ilaa free kick Magic uu shabaq gaarsiin kubadda uu caawiyo toddobaadka hore kulankii Wolves ka basii danay week in week out Bruno uu shaqeynaa inaba caadi maahan saadartay marka ciyaaryahankan sida uu laba qarxay waxay muujinayaan inuu Bruno wali uu dhaawacan yahay sidoo kale tan Manchester United dabcan uu iska jooga maahan jacayl as uu qabo laakiin maamulka ay rabeen banaanka inay dhigaan kadib markii kooxda Al Hilal ay soo dalbatay ciyaaryahankan oo mushaar waaliye kooxda ka qaadanay hadda waa 32 jir saaxiibada qiimaha badan waxa loo bandhigay xitaa xagaagii 700 kun oo bond Manchester United dabcan ka qaato kooxda Hilal Simone Inzaghi qalqaalshi wuxuu dhahay lacagtaas oo idin waxa uu diido jacayl aan kooxda u qabo dhahay qandaraaska Manchester United oo kula jiraan wuxuu ku eegayay 2027 hal sano kalena uu ku dari karaa saadarteed xidigan daawadayaasha qiimaha badan kooxda United 300 kulan iyo ka badan u ciyaaray wuxuu leeyahay hadafkeygu wuxuu yahay koobka adduunka soo socda xulkeyga Portugal u ciyaaro kadib laakiin waxa dhici doona ma aqaan uu ka dhawaajiyo wuxuuna la hadlayay TV-ga loo yaqaan saxaabiyal Canal 11
ama Channel 11 oo dhankaas iyo Portuguese Football Federation ama xiriirka kubadda cagta Portugal iska leeyihiin wuxuu dhahay ninkan dhaawac soo gaaray ciyaaryahan ahaan ma qarsan kari uu dhahay waa waliba maamulka oo dhan waa ku gadeena dhaleeceen fara badan oo banaanka laga soo jeesko kooxda soo ciyaaraan dhaleeceen fara badan oo taageerayaasha ay soo jeediyeen waxa soo idil waa akhbar uu dhahay kooxdana hadda wuxuu leesan u caawinay inay waxba ka hagarada mar rabiyo ciyaaraankan 5 gool oo shabaq gaarsiiyay 7 caawin Premier League uu sameeyay saadartay marka Bruno hadda waa nafisi banaanka uu soo dhigay in Manchester United ninkan ay dir rabeen kiiskan wali waa taagan yahay saaxiibayaal marka aragtidiina ka dhiibtay in Bruno uu qalbi ka dhaawacan yahay arrinkan xilliga loo baahnaa uu ka hadlo ma laga yaabaa kooxdan isaga tago wixii xilli ciyaareedkan ka dambeeyay markuu World Cup ka aad bal ra'yiina ka dhiibtay dhinaca kale waxaan ka warqabnaa xilli ciyaareedka Liverpool markay u dabaaldegaan ku guuleysiga Premier League baska ay soo qaateen in baskii xafladii dabcan laga arbushanin intuu gaari soo qaato oo dadkii jeera dhibaato u geysay ninkaas waa la qabtay booliiska Merseyside qabteen kiiski in muddo iska daba wareega laakiin hadda xukun rasmi ayaa ku dhacay sida rasmiga shaaca laga qaadanay waxaa ninkan lagu xukumay 22 sano iyo 6 bilood ayaa lagu xukumay kadib markii uu qirtay qaladka uu sameeyay waliba gaarigiisa hub ahaan u adeegsaday wuxuuna dabcan isku dayay dhibaato inuu u geysay dad fara badan sidaa darteed marka Boyle ninka lagu magacaabo Paul Doyle booliiska gacanta ku soo dhigan kiiskiisa hadda uu soo ilaalay waxaan lagu xukumay 22 sano iyo 6 bilood sababtoo ku dhawaad 130 qofood ayuu ninkan nafsadooda halis u galiyay Paul Doyle oo 54 jir wuxuu ka xumaayay dabaaldegi celebrationka Liverpool ay sameeynaysa sidoo kale tan waxaa lagu helay ilaa 31 qalad oo kala duwan ama dambi inuu galo oo ay ku jirto isku day dil iyo sidoo kale si ku talagal inuu gaari dabcan inta u wada bulshada uu dhaxmarsiiyay dhibaatooyinka dadku u geysteen waxaa ku jira cunug 6 jir ah laga soo bilaabo ilaa haweeney 77 jir ah intaas oo dabcan gaariga jirsay intay ka badbaadeen iyo intii dhibaato u geystay markiiska hadda waa soo xirmay ninkaasna waxaa lagu xukumay 22 sano iyo 6 bilood ee lagu xukumay sida rasmiga ee shaaca laga qaaday asaaba hadda konton iyo xoog sana jiraba sida muuqata laakiin maxkamadda Merseyside iyo go'aan ka soo baxay ninkaas odaga in dabcan 22 sano lagu xukumay dhinaca kale ciwaanada kale kubadda cagta soo qaadan karna waxa qaybka Dan Burn ee loo rajeynaa soo kabasho degdeg ee difaaca kooxda Newcastle xaaladii sida loo mareynaa way ka darantay week ending ee jug halis badan soo gaartay kulankii derby match u dhaxeeya Newcastle iyo Sunderland hadda waxaa la xaqiijiyay lafaha feeraha inuu ka jabay sidoo kale dabcan dilaac xitaa uu ka gaaray sanbabada sidoo kale tan markii ugu yartay 2 bil oo maqnaan doon ninkaas tawarinka xoog badan bini aadan daciif inuu iska yahay fiirish ayaa shilkaas halista badan galay haddana waxaa la sheegay maanta isniin kooxda Newcastle report rasmi ka soo saaran Dan Burn oo xulka Ingiriiska 5 kulan u saftay in dhaawac halis badan uu galay sidoo kale tan wuxuu ahaa challenge oo 50-50 waa isku dhaceen Nodi Mokwela oo difaaca ka dhigay kooxda Sunderland dhaawacaasna wuxuu keenay shilkaas 33 jirkan in hadda dhammaan inta badan feerihiisa ee jaban lafaha ku jiro sidoo kale tan dilaac dhanka dabcan uu gaaray sanbabka Dan Burn waxa la markuu wuxuu u baahan soo kabasho dheer waxayna markii ugu yartay 2 bil ayuu ku soo kaban karaa sida uu shaaca ka qaaday macalinka kooxda kubadda cagta ee Newcastle macalinkeeda Eddie Howe dhibaatooyin gaar ah haystaan sababta Steven Botman waa ka dhaawacan yahay Kieran Trippier asagana fit ma ahan Emil Kraft xitaa uu ka dhaawacan yahay sidaa darteed marka Malik ninka lagu magacaabo Malik Chow iyo Fabian Schär kaliya adeegooda heli karaa xilli arbacada ay wajahayaan kooxda kubadda cagta ee Fulham Carabao Cup ee la ciyaari doona wareegiisa dabcan sideedaad haday kulankaas guuleystaan xaaladda ay ku jiraan ka bixi karaan niyadjabka waxayna u gudbi karaan dhankaasi semifinalka laakiin ciyaartooyda aad ugu yar saaxiibayaal dhinaca kale ninkii odaga Guardiola asigan wuxuu sheegay inuu isdhiibi rabo sababta wuxuu dhahay dhaawacyada ugu badanaya jadwalka waali ee pressure-koona saaran in dhab caadi ma saadada Manchester City ayagana arbacada Brentford ay wajahan Carabao Cup quarter finalist bab wuxuu shaaca ka qaaday in dabcan Jeremy Doku hadda dhaawac uu yahay kulankan uusan ciyaari karin dhaawaca dhanka lugta uu soo gaaray ilaa sanadka cusub wada 3 isbuuc 4 isbuuc meelahaas inuu maqnaado laga yaabaa Jeremy Doku sida uu macalinka shaaca ka qaaday sidoo kale Rodri Stones ayagana diyaar ma ahan macalinka sidoo kale wuxuu sheegay kulankii Crystal Palace dhammaan ciyaartooyda ciyaareen wuxuu inta badan ciyaarta ma dhersiin doona wax allaale wixii keed ku jira oo kulankaas ciyaaran ayaan ciyaarsiin doona marka goolhaya James Trafford oo kale ku soo bilaaba Guardiola wuxuu leeyahay marka intaan kadib wuxuu dhahay ciyaartooyda aad ay ugu yar yihiin inta heli karna service-kooda aad u yar balaas wuxuu ku sii daray Ryan Atinori Umar Marmoush oo koobka qaramada Afrika aaday marka anima ciyaaraha Pep Guardiola uu taagay kulanka arbacada ee wajahan kooxda Brentford dadka meesha ii fadhiya mushaarka qaataan oo wuxuu dabcan iska fadhiyaan waa ciyaarsiin doona wax allaale waxaan kala kulmo dhahay guul iyo guul darro marle waxaan ka joogaa taageen kulanka Brentford ay dhaafo kadibna sabdiga soo socoto waxa sugayso West Ham United kulan ka tirsan Premier League marka odaga warkiisa waxa laga dhansanayo inuu frustration ahay oo kaliya uu rabo Premier League inuu diirada saaro koobkan haduu ka hari karana
وربي الله أربعة اتحاد كدعاء أيضا جيمس ترفر وجوش قبان دونا جليوك الدنا رومان عيارتا وكان صندونا سحب يال سيد الصد على عيون إن عكلو عن سوق هذا كرنا عوانا ذا كلا يكبر عكتا قيب كأنك عن جمال مزيلا يقص الله بنا كرامة إن مدة كدب أيلو أركته وبرك FC بارمنجن عياران كان جرمال كتير وناس وانا كور قبنا بشي جون إنه سوق ناو حليس بدل مركي وسعترتن كحساب بدنا كلاب ولا كاب أسوأ لوك تلقى يكبر حليس بدناد أو قول هاي جليوك الدنا مركز باريس ترمان جول طبعا دبات وجست أنقى وكجبه جمال هذا وحب الله توبر سيد رسمي FC بارمنجن شعك قاعد أسيجنا السوشيال ميديا وصل لصور هذا سؤال feeling good to be back with the team آدم مدرما جو في عنو كوحدنا نقص لابتي توبر ولي والتيم وورك أيو سمعنا أو كوحدة وصل حقله وعيك اللي أنت مركب مود كجمال والدقية مرة ونبودها جرامدا لو أركض هنا وحين وتايم أخبار وناسن كوحدة FC بارمونجان صوبته أي وحدوان وصل لابتي دبعت كورة جامنس ليج العيارسية عيارين كلهم مع ألبونسا ديفيس ومدة سجال بلوت يكبر المقنعة وصل لابتي حدنا جمال صل لابتو عيارتوي ده كوحدة بارمونجان سديرن أو قروح بدن وصل دوين عيارين كان جرمال كا أو سوبر ستار لكن داوعي وريشين وعكلو سوق هذا كرنا عوانا كبدا عكتا قيب كسحب يال ninkii Jamie Carragher ahay laba shakhsi uu ku dhagan yahay Enzo Maresco iyo Mohamed Salah Maresco markaan ku hormarno wuxuu dhaw waxaan bardhigtay gareenayo uu dhahay Maresco iyo maamulkiina kalsooni ahaan dabcan kala hareen wuxuu dhahay sidoo dhahay waxay aad 48 saac ugu xumeed waxay noqotay hal hees hirgale laakiin 48 hours kaas wuxuu Maresco muujiyo dhahay in maamulka mas'uuliyiintiisa ay ka shakiyaan su'aalo badan la weydiiyay Carragher wuxuu dhahay come on Maresco su'aalo waa la isweydiin karaa uu dhahay milkiilayaashana xaq u leeyahay su'aal ku weydiiyaan laakiin waxaan meesha ka fahmi karaa uu ka dhawaaj in ay meesha ka baxday kalsooni boqolkiiba boqol lagu qabay 45 jirka Talyaaniga sadartay marka Jamie Carragher wuxuu leeyahay waxa ii muuqato Enzo Maresco anytime in shaqadiisa uu lumin karo hadii mar kale natiijooyin farxan uu la kulmo leeyahay Carragher marka Maresco wuxuu leeyahay ku daayay sidoo kale tan Mohamed Salah wuxuu dhaw waxaan jeclaan lahaa kooxdu inuu sii joogo laakiin wuxuu dhaw waxaan hubaayo u dhahay season-ka dambe Liverpool Mohamed Salah kuma sii arki doono xilli ciyaareedkan wuxuu dhaw horta uu dhameysana Janaayo ma bixi doono laakiin hal midaan hubaayo ka dhawaajay daawadayaasha kuma badan ay tahay in xilli ciyaareedka dambe Mohamed Salah Liverpool qorshooda qayb uusan ka sii ahaan doonin ciyaarahankan waayiis waa dhamaadooda walla Carragher waxa Salah waa ka helaaya dhinaca kale Real Madrid tababarka ugu dambeeyay ee sameeyay waxaana ka soo muuqan Kylian Mbappe Antonio Rudiger iyo Fadi Valverde xilli isku diyaarna arbacada ee ciyaar doonaan Copa del Rey sida rasmiga la soo daabay Alonso markii waxa awal ba asaytiisa haysatay Copa del Rey kooxdiisa waxay dabcan wajahaya naadiga lagu magacaabo Talavera del Real kooxda lagu magacaabo heerarka hoose ee la ciyaar doonaan saadartay marka ciyaartooyda hadda tababarka ugu dambeeyay qayb aysan ka noqon xitaa Ceballos iyo Brahim Diaz tababarka kama soo noqon kulli Mbappe waxa isla kuwan ciyaartooyda kala ku filan laakiin kuwa kale ka maqnaa dhibaato ku ah ninkaas odaga dhinaca kale Anthony Semenyo saaxiibada qiimaha badan loolankiis aad u sareeya Manchester United waxay ogyihiin inay ka tageen ama Diallo iyo Bryan Mbeumo koofka afkan ku maqnaadaan muddabil inay maqnaadaan laga yaabo saadarteed haatan majalada caanka Sky Sport iyo journalist caanka David Ornstein oo Telegraph la shaqeeyay waxay daabacayaan in United ay serious dhab ka tahay sida ciyaarankan ku soo qaadan lahayn kowda Janaayo markii la gaaro waxa qandaraaskiisa lagu jibin karaa 65 milyan lacagta pound-ka xidigan kooxda Bournemouth ka tirsan Manchester United waxay diyaar u tahay in la tartamaan kooxaha Manchester City iyo Spurs sidii diiwaan gashan iyo Liverpool oo ay xitaa qalqaale ugu jiraan Anthony Semenyo 100 kulan ugu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Bournemouth 29 gool shabakh gaarsiiyay tan iyo bishii October asoo gool aan hayne kulankii ugu dambeeyay Bournemouth United 4-4 ee la ganeen ayuu shabakh gaar saaxiibiyaan dhinaca kale waa rasmi Brendan Rodgers waxa loo magacaabay kooxda Al-Qadisiyya macalinkan hore u soo hogaamiyay Liverpool iyo Celtic iyo soo kale Leicester City dhankaasi Saudi Pro League ka dhacay kadib markii kooxda Leicester u dhawaan ka tagay qandaraas rasmi ayuu qaatay waayiisi macalinimo Celtic wuxuu la qaaday 12 koob si laga warqabo sidoo kale tan Leicester City xitaa wuxuu u qaaday koobkii FA Cup-ka 2021 haddana dhankaasi wuxuu aaday ciyaarta qiimaha badan Al-Qadisiyya ayuu qabtay xitaa waxa jirta warar ku aadan in uu maamulka weydiisan doono in loo keeno Mohamed Salah haddii uu kooxda Liverpool ka tagayo Al-Qadisiyya kaalin shanaad ay ku jiraan ee Saudi Pro League dhinaca kale kooxda Milan oo dhibaatooyin ciyaartooy haysato 5 ciyaartooy ay ku darsan oo Primavera ama yarar kooxda Milan laga soo dalacsiiyay kuwaas oo Super Cup ku lug yeelan karaan macna Allegri ciyaartooyda uu watan waxa qayb ka ah wiilka Zlatan Ibrahimovic ee lagu magacaabo Maximilian Ibrahimovic oo kooxda koowaad loo soo dalacsiiyay haatan AC Milan dhanka Saudi Pro League aadaysa si ay Super Cup u soo qaadaan Khamiista waxay la ciyaaraan kooxda Napoli semifinalaha finaalkan waxay sugan doonaa kii soo baxay Inter Milan iyo Bologna saadartay marka ciyaartooyda oo ku yar aweed wuxuu hadda go'aansaday 5 ciyaartoy dhalinyaro inuu wato Rafael Leao xitaa jugo qaba kulanka inuu ciyaari karo in kala ma hubo Allegri marka horyaalka uu muhiim ah laakiin hadda Maximilian Ibrahimovic ciwaanka qaadana maadaama uu qayb ka yahay dhalinyarada kooxda Milan ee wadatay ilaa 5 ciyaartoy gaarayo sida rasmiga ee la xaqiijiyay saaxiibayaal aqyaar guud ahaan barnaamijkan intaas nooga eegay xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe alla idmo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.